Lionel Andres Messi, halyeygii xiddigii ugu fiicnaa ee abid soo mara kooxda Barcelona, wuxuu si rasmi ah u macasalaameeyay kooxdiisii caruurnimo ee Barcelona, waxa uuna ahaa warkii ugu weynaa ee dhinaca ka tagista kooxaha ay wax ka qoraan abid warbaahinta caalamka, kaasoo gilgilay malaayiin daawada kubadda cagta. Soomaalida dhankeeda aad ayay u xiiseeyaan kubadda cagta, waxayna in badan oo ka mid ah taageero aad u weyn u yihiin xiddigii ka tagay kooxda Barcelona ee Lionel Messi. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Bournemouth oo ra'yigooda ka dhiibtay siday u arkaan ka tagista Lionel Messi ee kooxda Barcelona. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Ilya Abdullah. It's my first time I came here. Bournemouth ku soo xaga baxay. Wallahi anu waxaan ahay horta taageeraha Barcelona, clubka Barcelona. Saaka waxaan ku soo kacay war murugale anoo soo kacay baan arkay anoo Facebook galay baan arkay ciyaartooyigii laacibkii inuu ninkaasi ka xariisay ninka Ronaldo la yiraahdo amba hal isku raaco amba hal diiday laakiin ninkaasi ka xariisay ninkaas marka anaku ninka clubkaasi ninka ku fadhiyay maaragtay clubka Catalan leeyahay Barcelona markuu ninka Tehranka inta la soo galay Camp Nou isaga baad ka macalin hayo ka wasiir haana oo ya walka wallahi saakin niyada iga xumaatay waxaan lahaa ninkii waxa ku yimiday Aguero ninkii kale magaciisa Memphis Depay ninka labada ragoon ay sidii weerarka Messi la qaadayaan waa nasiib darro inuu maanta naga tagay wallahi waan ka xumaaday aad iyo aad anu waxaan moodahay in loo sii biirinayo la sii wadanayo Barcelona laakiin aan saaka wallahi niyada iga xumaato waxa ay Barcelona ninkii dhanay ku fadhiday kubadana dhanna qaybinay haduu ka tagay khalaas club waxba ma haanay saameyn weyn aad iyo aad ku yeelanaysa weerar fiican ma haysanayso waa ninka dhanay macal isagoo weerarana dhexdeeda ma jira kubadana qaybin jiray ninka Ronaldo ma kaliya kubadda dhalinayeen maaha raga kale saa gacanta ku haynayo kubadana u furayay ninka Ronaldo kubadda laga shaqeeyo baa loo keeni jiray laakiin ninka saa kubadda ka shaqeyn jiray oo keeni jiray marka waa saameyn adag ku yeelanaysa way ku adkaan xaalad adag bay Barca imika gali doontaa taageerayaasha Barca waxa la in kastuu Messi naga socdo waxba kama dhigno aska sii wadano sidaan clubka u sii jeclayn aan sii jeclaano waxba kama dhigno kastuu naga tagay laakiin waska sii wadano insha Allah taala sidaan u sii xiisanaa Barca Messi meel kastuu tagayna waa taageerana horta Leo Messi wuxuu ahaa laacib weyn oo legend Messi wuxuu ahaa laacib weyn oo legend oo 2004 Barcelona yimid Barcelona taariikh fiican ka sameeyay Champions League badan 4 Champions League iyo 10 horyaal u qaaday qaacidkaasi iyo maxay warka soo dhacay xalad hore washaqeynta ama kubadda cagta taageerta ama Barcelona taageerta aad bay uga naxeen waxaan maxay ahayd anu daawanayay gaar ahaan Barcelona inta uu Messi ciyaarayba qof daawanayay ama taageero daawanayay waxaan maxay ahayd la yaabay warkaasi ka soo dhacay gobolka Catalonia gaar ahaan magaalada Barcelona iyo garoonka Camp Nou muddo in badan soo daawanaynay anagoo ah mushaqin taageerta Messi walow aan taageer jiray Ronaldinho haddana waxaan leeyahay ka digida Barcelona Messi ka tagay dhaawac weyn bay ku noqonaysaa kooxdii iyo La Liga haba maadaama ay sidaa tahayna waxaan soo waxay leeyahay in kastoo ciyaartooy badan iyo kooxda ka weyntahay ciyaartooyga haddana aad iyo aad ayaan maxay ahayd uga naxeen madaxda Barcelona iyo taageerayaasha Barcelona والله سامين ميسي بوسكيسا أنا عد بوحين كرتا ويا ميسي ميتشين بالغو ترماما أما تالنتيجا وعيارتو محي هيدا أنا لو بوحين كريني محي هيدا تاكتي ساسي ويا وحنا ليه هاي برشلونة والله waxa ku bilaabantay boos weyn ama boos dhaxan say Soomaalidu tiraahdo boos dhaxan ka soo gartay oo bilaabantay waxaan eegi doonaa Barcelona bila Messi 15 sano ka bacdi baynu eegi doonaa laakiin waxay ku tahay inay marnaba kooxaha sida PSG oo kale City oo kale ay Barcelona sidii berigooda uga jeesto nimka loo gar doono Messi PSG tagana inay ku adkaan doonto si loo qaban doono Neymar iyo Kylian Mbappé iyo Messi ayaa aniga ila tahay bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aan isku dayo su'aasha oranaysa Messi inuu Barcelona ka tago sideed u aragtaa Messi inuu Barcelona ka tago waxaan u arkaa dib aad u weyn sababtoo ah kooxaha La Liga ciyaaraya ama maxay daan horyaalka La Liga waxa imanaya hoos u dhac weyn sidaynu ogsooneen waxa ka tagay laacibiintii adduunka ugu fiicnaa Cristiano Ronaldo ayaa ka tagay Real Madrid Sergio Ramos baa ka tagay hadii uu Messi ka tagana aad bay La Liga si guud horta ay u saameynaysaa marka labaad kooxda Barcelona waxay ku noqonaysaa dhabar jab weyn maadaama uu ahaa qaayid
maadaama uu ahaa laacibkii adduunka maxay ahayd aanay muddada badan soo hogaaminayay waxay ku ahaanaysaa dhabarjab ka koox ahaan sidoo kale Lionel Messi ka tegitaanka uu ka tegayo Barcelona waxay ahaanaysaa mid aynan ku soo hiran ciyaartooyada juniorka ee aadka u yar ee fiican oo ciyaartooygu waxa uu ku yimaadaa teamka marka uu joogo laacib weyn kooxduna waxay iska noqonaysaa sidii kooxaha caadiga oo ma imanaysa in laga cabsado ciyaartooy laga cabsado maadaama uu na joogin waxay iska ahaanaysaa kooxaha iska caadiga de kulley waxaan ahay taageera Arsenal Barcelona waxaan oran karaa waxay noqonaysaa intii uu Messi ka tago Arsenal tegitaanka kooxda uu tagayo kulley waxa ugu dhow kooxaha kharashaadka haysta City iyo PSG baa ku xifaaltamaya oo aad u xiiseynaya laakiinse waxay u badan tahay in uu ka daba tago saaxiibkii Neymar nin muddo badan xifaaltamayay nada uga sii horeeyo Sergio Ramos oo marka Real Madrid marka Barcelona iyo Real Madrid la yiraahdo taageero u ahaa Sergio Ramos bay ku midoobi karaan ma oran karaa kooxda PSG bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo horta taageerayaasha Barcelona inta badan taageero war culus Soomaali xalay nagu soo baxay ayaa inuu Messi kooxda ka tagay kulli saameyn aad u badan waxa in badan sidoo maxaad khadar ba sheegay waxa la doonayaa in Brazil laga qabsado in badan inta Messi la ilaaway marka waxa la rabaa in dad ay ilaawaan dadku Messi waa waqtiyo badan bay qaadanaysaa in si lagu ilaawi lahaa Messi Brazil la qabsan lahaa